السلام عليكم أدبنا دي سلام يا دمان أصحابتك كحران يوتيوب كسول أوفيشيال waxaan ku soo dhaweynaynaa maalin kale oo cusub iyo sidoo kale barnaamij cusub sulub official way ninka barbarkayga fadhiya ninka bariga Mustafa Sulub baa la oran jiray iyaga laakiin dadku waxay yaqaanaan sulub official sulub channelka maanta aan ku soo dhaweynaya ana furay markaan meelaha marayso adiga oo asxaabta salaamaysa barahay markuu soo dhawo asxaabta salaam كل هو سلام عليكم. سولف فاميلي ملك استاذ جوتان مالي وناكسن ظهر وناكسن عصر وناكسن وقتي كاستويدين تهي وناكسن وصح marka maanta barnaamijka waxa wadataan istaxada wadata bal aynu aniga iyo idinkuwa waxba kama ogin aynu la socono waa ogaanaysan barnaamijka laakiin intaan barnaamijka u galin YouTube-ka marka sulub official yimaado sulub official bachana qoran dadkiina waxa kugu yeedho sulub official adiga waxa qoran jiray barnaamij Mustafa Sulub magacii aabaha iyo kaagiiba saas isku duuduumeeno sulub official baa meesha maraya cadarata marka lagu raado sulub official iska wara ku salaama sulub official markii dadku leeyihiin inta taqaana inta channelka baratay inta channelka iga baratay sulub official ay taqaana horta sulub official sulub waa official qofku markuu leeyahay sulub official sulub official waa channel baa leeyahay xarif channelka doolan dhaha mareegta YouTube inta aad ku qortid sulub official class صح aniga sulub baa leeyahay waaya ma su'aalan ku weydiinaya su'aalaha waxa la yiraahdaa xalli wax ma xallisay horta xalli ha waxaad xallinaysaa sababta xalliyana waxaad xallinaysaa kana xisaab lagu diri maayo laakiin waxyaabo badadigu la doonaya inaad furfurtid xalliso deetana aad doow sax mariso marka ugu horeysa waxaad kala sheegaysaa laba shay baad kala sheegaysaa labaduba waa fool xumo waxaan sheegayaa laba shay waan kala sheegay labaduba waa fool xumo fool xumadana la rabaa inaad xalliso oo tiraahdo anigu maxaa tiri laba shay waa fool xumo fool xumo la doonaya inaad xalliso fool xumo xallo waay idinka dumara waxaad ku qaadateen muxuu ahaa makeup marka xal looma leh may tanitu makeup xalinaya xataa ma walxumada qaar ma taama miya ha tii makeup kana xalinaya ma calgaaga la rabaa waxaan kula doorasiinaya inaad fidaar yeelato fidaarta ku istaagto oo foolxumo weey iyo inaad ilkaha yaryar ku qoslayso ma aragtay gabadhu way iska tagaan marka adiga muuqaalkaaga ahaan ma waxa dooran lahayd ilka la'aan oo xalisan lahayd mise bidaartaas xal u helaysa midkeebaad adigu yaani sulub ahaan oranaysa ka san qaadanaya waxaan xal u raadinayaa ama aan dooran lahaa bidaarta sababtaan ku doortay waxa bidaarta koofiyad baad jid ku siinaysaa laakiin se ilkahan hadii ka dhacaan oo ka dhamaadaan qosol uu ku daayay umad laba qosli kartid wayna qacadna adiga hoosta wayna ku qashay katira marka bidaartan ku asdahay sulub qadmad waxa uu daran tahay adiga markaad baad doortay wasaarkaysa moogtahay marka tirika fiita musliga kaga qaaranaya adiga ma ugu nafa umadi ku daanigu naftayda waa ogahay ina bidaar leeyahay waxaan soo kala inka soo hadda macnaha waqtiga la joogo inka soo la beerto la habaysto casriga ma tan wataan xalay bidaar xalaaj bidaarta waa diyaaraysa halkaas ku tagtay waxba ma sameyn kartid anigu waan soogaa ina bidaar leeyahay laakiin dadka loobiyada jaqo zeeraya waaye taasida sida ka soo noqonayna su'aasha labaad ku weydiinayo kullu dhalinyarada tahay qof aad adigu soo xulatay waaye oo dadkan ka sida weertaan saarayay qofkaas ugu munaasaba iyo qof waalidka ay tay fikireen maamo ku qaadatay ay raadeen ninkii sulbaha kulku waa xilligii wuxuu taagan yahay gurdoonka miyaa loo dhig adigu diyaarsan ha gabadha loo doono ay gabdhihii Soomaaliyeed saa kugu dhaxmareen markaaga soo qabteen labada qof baa xal doonaya inaad xalliso arrinkaasi midna doorato midna tirabarta ka bax mid waxa tiraana doortay midna waalidka ay dooray ha te waxaan qaadan lahaa ta waalidkii dooray sababtan ku qaadan lahaa ta waalidkii dooray way tan dooratay waad muddo maxaa radaan aad wada shakisanaysaa way ku jeceshahay ta aan dooran hadii aad ka tagto nolosheedu waa khalaas oo dhamaanaysa ka gabadha miyaad galaafanaysaa iyo waxa leedahay mise waalidkaaga ka wasbaxaysaa ayaan ta waalidkii baan dooranaya gabadha nolosheedana
gabadha nolosheeda ma nolosheeda ku xiranta way ku xiran tahay haddii maadaama muddo ka soo qaad 5 years bad gabadhan aad maxay dhadaan wada socotay wayba iskaasi soo ku aaminsan tahay ma ogtahay waxa tiri tii waalidkay baan dooranay iyadoo maalintaas ayaa nolosheedu waxay galaysaa haris horta waan waxay ku xalinaysaa inaad afcad oo dhan maysi waan ka tagay maxaad oranaysaa waalidka horta dhinaca in la baal maro waa dhibaato waalidkan qaadan lahaa in ragaan wahay afar waa leebanay waalidku ma ii diidayaan intan tooytii ii dooreen ma qaatay tana laban kaga dhigay tana kula weysanaysaa laakiin tii waalidku ku dooreeni iyaduba waa gabadh waxay ku oranaysaa ma la weysan kartid iyada hadii doonto meesha baxaysa halka ana xalinaya dadka xalilay dadka la wadaag waxaan ku xalin kartaa dadka soo official daawadaan waxaan ku xalin lahaa qoftan aan wada sheekaysin muddo badan aan wada xiriirka naga samirsiyo aan iraaho waalidka taladiisa bal mari maayo qoftan aan soo guursanay qoftan markaan guursado markaan muddo qaban ku yaacay doona furay ay sisu halka aad u biisitaan inta hadday yeeli weydana baan leeyahay tan halaagtii tan dambe waa furaysa markay ku ogolaato tan anigu aan jeclahay baan dooranaya tan waalidka inta ku yar qanacsan furaysa hal ma hakaasi sir ma bishiriga ka soo halintoo waayahay markan waayahay tii waxaad ka soo qaad halka ma ku sii soconayna gabadhii waalidku ku soo xuleen gabdhoon baad ku jirtaa barnaamijka ma wada gabadh wax ku weydiinaysa gabdho filim ku noqonaya gabadhii ay waalidku ku soo xuleen waa adiga ingiriis ka tag ku qanciyay tan hore markaa ayna markaa aad tan soo waalidku waad qaadatay waxaad ku qancisay tan hore inay ku sugto soo maaha way ku sugtay tii hore aad iska dartay tii aad jeclid baad guursatay hadda nolosha waa sagrabtay deetana gabadhii waxay dhalaysaa habluun bay dhashaa gabadha inooma dhasho 10 hablood bay ku dhashay dhaqanka Soomaalidana waxa lagu ogyahay waxay nimadu aad u jecel yihiin inay yani gabdha inay rag dhalaan waxa la dhahaa tirsintaadii war magacaagu si uu sii jiro waa inaan adduunkan kaaga xara arinta marka maxad ku xalin lahayd inantii ma la soo guursan lahayd gabadhii waalidkii siiyeen macnaha guursaday dumar u dhalaysaa may taa adiga inta ku yidhi tii kale guursatay tii kale guursada dumar u yacaynaysaa saahan 10 daabay dhashay 10 da oo gabdha ay dhashay isku xiga adigina waxa rabtaa nin magacii reebo oo la yiraahdo ina sulub maxaa ka sameynaysaa maxaa ii diidaya tan dumarkeeda iska dhasho inaan gabadh kale guursado marka la guursanay waan la guursanaya gabadhan waa gabadhii marka hore gabadha sanad badan marka hore waxa kugu samirtad ku tiri waalidkay baa maxay radaanay yiri gabadhan guurso waadeen ku qanciyay si ku yiri waa tan ku sugtay waadeen tii waalidka ku keenay guursaday waadeen muddo qabay waadeen soo furayay ku soo noqday iyadoo ma dhagax ba ma waxaan sameeyay gabadha maadaama ay 10 da oo kale ay gabadh dhashay iska sugay iska samir lahaa teedaas uma iska dhamaysan hablaha iska haysan hablaha iska haysan lacala waxa ay kartaa in ilaahay igu taxaamayo iska samir halkaagu way in islaami habli wala islaami maraya islaami branka waa islaami amare way taxaaqadan ku dhawiya hadda waxa taagan dhalinyarada waxaad tusaalahaan shaqo ayaa doonaysaa inaad macnaha shaqayso shaqo fiican baa doonaysaa inaad gasho waxa ku gudboonaatay inaad shaqo gasho oo shaqo raadsato 5 years kugu qaadanaysa shaqadaada ku anfacda iyo inaad islaan lacag haysato oo qurba jooga guursato islaanta hadii aad guursato shaqada ma helaysid hadda shaqada heshana guur ma helaysid يعني إسلامتها لعقتها استوى إسلامتن لعقتها له هديان جورسدو الشقة يوم وايه شقة دي بقول سيدة وقام رسالة شقة سامته وقوينته ولا عليه ها ولا عليه تيجان نلاش لقي بصنا ما دام إسلامتها هاي ووقت جدنا وعمر جد سوق جابين هاي عمر جد ما دام سوق جابين هادو حل كذا نهلي يدان أصلا حق طبيعي إسلامتها ما بدي ما نسأله دمشقة قرنتها صح والله ما كان سوق هذا واقع صور تاجنت ما ديدا يبدأ أنا إسلامتها إذا سكاهستوني محل سكيتشرا أنا حبدي راشدان كويا عارضان يرا لعب بلا إسلامتك كم أقوله مين ولا قرينيا يلا دينين ولا دين توي وقشة واحد دين تبال مرسنا دان قصده لكن دين توي وقشة قرصنا يا خيامة كل عيسى خيامة كل عيسى يا خاين